السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha umahooda channel ku xiran meel walba oo adduunka daafihiisa ka joogtiin izii caafimaad ku noolaada waa anigoo ah walaashiin umahooda channel maasha Allah maanta waxa inoo wadaa cabitaan ama smoothie insha Allah sida aad u wada jeediin waa strawberry iyo apple ama apple maasha Allah iyo limon iyo banana intaas ayuu cabitaankeena maanta smoothie-ga uu ka kooban yahay maasha Allah ka faa'iideysi wacan sida aan wada ognahay qudaarta waxtar badan ayay inoo leedahay fruitiska meesha aad ka qaadan lahayd subax walba kiniin ama aad energy aad ka raadin lahayd inaad waxyaabo proteina aad qaadato insha Allah wax kasta oo korkeena uu tabayo waxay ku jirtaa qudaarta fresh-ka ah marka insha Allah aan isla ogaana haduu Ilaahay ogolaado maasha Allah tabarakallah walaalahayga qaaliga ah waxaan inoo wadaayo kaleeto biyo maasha Allah aan ku guri doono liin dhanaan iyo liin macaan iyo sinjibiil iyo caleenta maxaa la dhahaye mintiga la yiraahdo maasha Allah waa aragtaa waxaan soo goostay liin macaan aan maasha Allah aan warwareeg u soo jaray iyo liin dhanaan sidaas oo kale warwareeg aan soo gooyay iyo sinjibiil aan soo xoqay sinjibiilka qoyan weeyaan ee fresh-ka ah maasha Allah dan si fiican aan u soo jarjaray maasha Allah maadaama hadda winter lagu jiro waxa weeyaan waa waqtigii biyaha dadka iska qabanayeen marka qaabkii biyaha ay inoogu socon lahaayeen waa inaan u fikirnaa oo biyo badan korkeena uu ku qaadan lahaa qofka bini'aadanka waxaa loogu talagalay maalinkii inuu qaato ugu badnaan 4 litir haddii uu qaadan karo haddii kaleetana soo maaha 2 litir ilaa iyo 3 litir ugu yaraan 1 litir qofka inuu qaato laakiin biyaha inay iska kaaso taagaan kulli caafimaad darre ayaa ku sugan maasha Allah saan wada ognahay korkeena biyo u baahan yahay qofka bini'aadanka haddii biyaha jirkiisa ay ka yaraadaan korkaaga wuu dhadhayaa jirkaaga maqaarkaaga dhan iyo skinkaaga wuu isku dhagi skin qurux badan ma yeelanaysid marka qofka qurux u baahan maasha Allah biyaha cad hal isla ogaado qaabkii haddii ay biyaha dhadhankooda cadaanka ay ku dhibayaan waa inaad maasha Allah aad u fikirtaa qaabka ay kugu socon lahaayeen marka insha Allah waxaan sameynayaa geedkaas mintiga waan gogoosanayaa caleemahan ka jarjarayaa kadibna waan qaadayaa haduu Ilaahay idma si fiican ayaan soo dhaqayaa qalba iskaga dhaqi insha Allah si fiican hal isaga mayro because waxyaabo badan in lagu soo buufiyo ama dhirta waxyaabo lagu ilaaliyo in lagu buufiyo ayaa suuragal ay tahay waan iska soo mayrayaa haduu Ilaahay ogolaado si fiican aan soo dhaqi insha Allah aan isla aragna insha Allah
maasha allah tabaarakallah. Sanjibiilka aan ka hadlayay mid budo ma aha, waa midkaas qoyan. maasha allah dhalada aan haysto ee biyaha aan ku shubanayana wataasa waa dhaladaas weyn. maasha allah saasan usoo buuxiyay familka dhan ayaa ka wada cabaya maasha allah. maasha allah liintii aan ku gurayaa waa u jeedaa. maasha allah liintaan ku guri kadibna waxaan ku darayaa mintiga. maasha allah biyo waxay noqonayaan tasti kale gooni ah sameeyay oo maasha allah cabitaan oo kaleeto wax yar oo kale gooni u sameynaya. sinjibiilkii iyo liintii labada liin ee kala nooca ahaa iyo caleentii marka lagu guro waxa ka sii dhiman oo kaleeto insha allah qajaar iyo moolin insha allah qajaaraan soo iibinaya iyadana waan ku darayaa intaan soo gogooyo haduu ilaahay qadaro insha allah berito ahaan caawasana u radiyay. maasha allah subixi tasti kale gooni u sameynaya ilmahaaga markaad u shubto kaama diidaya biyaha cad subix hore beerkay kaga dhacayaan caruurta iskama ka qabanayaan maasha allah. asxaabay waxa kale oo idin wadaa maasha allah hooyooyinka quruxda badan gabdhaheena quruxda badan maasha allah xaalad kasto oo ku jirto ha isdhiibin xaalad kasto oo ku sugan tahay ha isdhiibin maasha allah halka waxaan ku haystaa 2 qaado oo cusbo ah waxaan ku darsan doonaa 2 qaado oo sokor ah waxa kale oo aan ku darayaa haduu ilaahay ogolaado 1 qaado oo kafee ah 2 qaado oo saliid zeytuun ah hadii aad afaarahan habeen walba aad isla ogaatid aad gacmahaaga iyo lugahaaga amaba aad weel weyn intii aad ku samaysato week aad u samaysato qurux ayaad noqon doontaa. anaa hore usoo isticmaali jiray maadaama xaaladaha hadda isaga jirjiro gacanta ayaan iska qaaday marka hore waxa loo yiri gabar iyo guriba waa gacan ku hayn yana is ilaawin hooyo qurux badan oo nuur ala nuur ah inaad noqoto aad iyo aad ay qurux badan tahay adiga lafahaaga maasha allah hooyo dhiiran ayaad noqonaysaa hooyo qurux badan oo isku faraxsan ayaad noqonaysaa laakiin marka tahay hooyo ay ka dansan tahay aan qurux badnayn waxa way skinkeeda aan qurux badnayn gacmihii biyo ka diloodeen time aan nafteeda u helaynin aad iyo aad ayaad u niyad jabaysaa dumar aan nahay waan is wada ognahay marka dumar hadaan nahay maasha allah waxaan ku qurux badan nahay inaan qurux badan nahay ayaa anagana farxadeena ay tahay marka saxaabay insha allah arintan isla ogaada arimahan isla ogaada biyaha sharaabka salaadka waxyaabaha korka lagu dhaqayo jikadaada ayay yaalaan banaanka ma doonaysid lacag kuma soo gadaysid qaali ah maasha allah jikadaada dib ugu noqo jikadaada ka faa'iideyso insha allah habeen walba 30 minute hadii aad intaad howlahaaga iyo danahaaga aad hore u dhameysato suuligaaga aad 30 minute aad ku qaadato maasha allah quruxdaada aad ka shaqeyso 1 week ila soo tijaabi beautiful ayaad noqonaysaa hooyo faraxsan ayaad noqonaysaa hooyo deep clean ayaad noqonaysaa meel walba iska maydhay marka maasha allah yana isla ogaano waxyaabahan hadda aan idii keenay aniga laftirkayga waa isdhigtay aan isla bilowna insha allah dhiirigelinta aad ayay muhiim inoogu tahay anaga dumar hadaan nahay is dhiirigelin insha allah commentiga insha allah soo tijaabiya insha allah fikradihiina markaad ku soo faa'iidin insha allah ila soo tijaabiya hoos iigu reeba waxaan kaloo idin leeyahay walaalaha subscribe ka cusub jazaakumullahu khayran idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina waad ku mahadsantihiin maasha allah walaalihii hore noola jooga waxaan idin leeyahay qalbi furan iyo niyad saafi ah nagula sii jooga maasha allah waxaan idin leeyahay saxaabay nafteena aan ogaana insha allah especially dumarkeena quruxda badan lafaheena aan ogaana haduu ilaahay ogolaado hooyo waa gacan ku hayn iyo guri intaba maasha allah cibaadadaada waqti u hel ubadkaaga waqti u hel quruxdaada iyo lafahaaga waqti gali maasha allah waxaan idinka tagayaa cizi caafimaad ku noolaada meel kastoo adduunka daafiisa ka joogtiin waa anigoo ah walaashiin umuhuda habeen wacan oo wanaagsan ayaa idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu